حاجة واحد سامعين كرتا حبيت جدار يرى الأوبا بتصاري كرتا داد تسالهان استوري 1 تيك توك استوري 1 أو بعرفي دا كون الله وول تيك اوكي وول كمركا تيك توك تكنس كوول كان إنه تسالهان 20 سنتي كسودقنا اوكي 20 سنتي حاجنا انتو هيد كيسو يهي إنه تسالهان 20 سنتي كدقنا 20 سنتي markaan ka dhigno bartaasaan ku soo qaban doonaa gudaha ay qabadsiide xagan ku tooso ilaa xaga right click okay marka wax isbedelay baan fiirino 3D aan tago waxaad aragtaa okay 20 senti waxaan jeedaa dhulka muxuu ka kacay marka select garaysto gidaarka bas hata ay select garaysmaan waxaan rabaa inaan gidaaradan dhan soo celin karo suspendiga ka qaad isku ka xidmaan then waxaad samayn doontaa dhulka intuu ka kacay maadaama slab kan baha 2 meter 8 ku jangoona -20 wadhi -20 okay well okay anda waxa isbedela xagu soo istaago marka waxaad aragtaa in oo meel fiican inuu soo istaagay la xagana soo gaarsiin kartaa marka aad rabto waxaad samayn kartaa bartaynta that suspended rather in at wall kan si gaara soo jiidan karto okay haduu ka ogolaado kaas taa isticmaal stretched lengths dina ilaa bartaas libaad soo xidhan ka si fiican okay saas la mid ah xagan haday u baahan tahay click stretch okay stretch ku shaqeynaysaa ilaa meelaas waa tahay okay marka waxaad samayn kartaa dee haddaad rabto saa ku dayso hadduu saa kuga cajibinayo haddaad rabtana intaad suspend ka qaado click dabeedna waxaad samayn kartaa model colorka inaad kasoo bedesho tusaale ahaan bal madowgaan ka dhigno oo qurux noo keeno okay oo taaba orbit warwareeji quruxba ma caadiba dad aday ku taalaa markaani waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan kaasoo kaleeto miyama stuko sax kaaskeeda haduu qurux keeno waan eegaynaa bal okay edges kana marka dee same kala dhig gebigiisa bas same kala dhig for same okay then waxaan rabaa inaan soo fiiriyo aragtaa inuu yani waxoogaa projectiga qurux badnaaday okay inta waxay noogu dhan yani projectigeeni wixii yaraan sameynayna ee for beginners ay hadda waxaan ku soo gabagabeyn doonaa inaan tusaale ahaan groundiga tagno on mesh soo dhigno mesh marka meshka laga qurux badan yahay slabkan bay noo dhaama meshka waxa la dhahaa waa dhulka aad isticmaal doonto waa kaawi marka tusaale ahaan hadii aad thicknesskiisa wixiisa tusaale ahaan iska dhig 20 cm ka dhig -20 okay iska dheh bal meelahan saa u saar projectigaagii oo dhan kaa qarin doonaa yani oo ama ka soo dhaxgelin doonaa hash iyo waxyaabaas hadan 3D ku fiirino imika bal maxay noo soo baxay hadda waxaad aragtaa in challenge-teeni ay hoos gashay marka seen waynu hagaajin karnaa tusaale ahaan elevation-ka inaad tigtad ku qasbanaan doontaa okay elevation-da marka hadii aan tagno tusaale ahaan elevation-ka marka la xaragtaa in kan iyo kan yani waxaan rabaa in ka madaxiisa iyo kan hoostiisa ay isku beegnaadaan marka waxaad sameyn simple adoo number iyo xaq qorin cabirba ku mashquulin control iyo d oo move u dhigan click la bartaas okay barta marka waxaad aragtaa in dhulkeenina uu sidaa ku sameysmay marka waxaad aragtaa projectigaagii hadaad u fiiriso sidan okay inta waxaynu ugu dhan yani projectigeeni markaan sameynay marka waxaad samayn kartaa dhulkan imika inaad balaadhsadaa rabto taqaanaa click intaad tiraahdo inaad node ka taabato plus markuu kugu soo daro aad bal waxaa rabto iska sawirto ilaa xaggaas okay projectigaagina waa kan 3D aad kasoo fiiriso kaas okay marka imika waxaan samayn doonaa tusaale ahaan dad see loo soo geliyaa inagu korsadan waxaan u doonay soo beginners maaha ku cusubtay ka dhigan marka dad waxaad soo gelin kartaa inaad barta objects aad tiraahdo dad iyo gawaari iyo waxa rabto waxaan tusaale ahaan imika tree baan ku qori geed baan soo geliyay tusaale ahaan marka koowaad tree okay
tree kuwan oo kale tusaale ahaan ay kan oo kale palm tree gaas aan soo geliyo hadagtaa dan meelahan soo dhigo click dhinacaana soo dhigo 3D gaan ku fiiriyo laba geed oo dhaadheer oo sawira inay noo samaysmeen okay kuwan waxaad aragtaa inay yani sawir yihiin salaad meel walba u jeediso ay dhinac walba viewgi kaaga soo qabanayaan marka dad bedelayso adag ku taalo bedeli kartaa bal haddana ku noqono objects gaarina marka kaarun ku qor marka xaggan ay ku jiraan wax walba tood ka fikirayso yani soo dhigi lahayd meesha in isla fahanaa u malayn kamid soo qaado tusaalahan kan oo kale okay then xagga iska dhig nay 3D aragtaa gaarigiina inuu xaggan taagan yahay arkayna waxaa aragtaa isagoo dhulka aad uga kacsan yahay elevationka tag soo celi dhul celi okay seebaad samayn kartaa inaad click tiraahdo click markaad tiraahdo control D noodkiisa soo qabo ilaa barta saar okay 3D ga dad ku fiirso inuu dhulka yeelaad aragtaa taas wata marka geedashan labadan geeda falfalxmada badan ee naga saar ground floor tag haddana objects people day people okay qof fadhiya ama qof soo baxaya waxnaas qof socda bas ka dhig ninkan kan saade okay darabta challenge dul stage isagoo soo baxay ka dhig okay waxaad aragtaa inuu challenge-tii cagta dul saartay ama saa u remove garay control D slabka dul saar caadi isagoo soo baxaya okay qof soo baxay ka dhig waad aragtaa waxaan samaynay waad aragtaa okay you see okay inta waxaa inoogu dhan yani projectiga aynu sameynaynay aynu ugu talagalnay ardayda archicad totally ku cusub hadda waxaan gabagabeynay course yar oo waxaan dhahay crasha oo aad waxaan dhahay ku fahantay qaabkaad waxaan dhahay bilow waxaan dhahay fiican ugu noqon lahaa archicad qaabkaad u isticmaali lahayd tiirka imka geedka aan soo geliyay heydkiisa rabaa inaan bedelo 5 mitir inaan ka dhigan rabaa 500 ka dhig adagtaa then haddaad badinayso groundiga tag oo day ku badi meeshaad rabtay inaad ku badiso control shift D okay copy weeyaan control shift D xagaan inaga dhig 3D waxaad aragtaa in intaas aad samaysay ugu dambeyntii iyo waxaan dhahay gunaanadka koorsadena waxay noqon doontaa in tusaale ahaan groundigan oo kale haddii aad rabto inaad sawir ka qaado oo tusaale ahaan waxaan jeedaa ama sawir 3D gaad sawir ka qaado inaad samayso documents intaad tagto creative imagine photo rendering setting intaad kasii tagto in aad waxa loo yaqaano bilowdo renderka tusaale ahaan aad outdoor daylight medium kaas oo kale aad ka dhigato dabadeedna wax walba aad bedelin tusaale ahaan inaad okay tan yarayso okay hadii ku yaraysmayso laakiin oo xagga hoosta sii jirta xagga aan render ka qaadi lahaa marka waxaan rabaa documents creative photo render projection ku dul jiido warka sawirka oo ii qaado aan xaggan iga soo baxo dabadeedna aan save garaysto laptopku save garaysto markuu ii dhamaado save as aan dhaho salaam waxa laga yaabaa inuu raago inkastoo mid quality laanan ka dhigin laakiin hadda fiiri xoogaa sug gunaanadkii iyo gabagabadii aad waxaad aragtaa inuu renderkii noo soo baxay
marka kan si aad u save garaysan kartaa right click save as baad dhigi kartaa save as baad dhigi kartaa dibadna desktop dibadna tusaale ahaan xaggaas hoose inaad save as jpeg aad ka dhigto dibadna desktop iska dhigo save then markii uu kuu save garaysmo waxaad samayn kartaa inaad sawirkii soo fiirin karto waa ka sawirkii noo soo baxay sidaas la mid ah intuu sawirkii nooga soo baxay waad aragtaa in sawirkii qurux inoo noqday ama uu inoo soo baxay kaas waa ka sidoo kale waxaad rabtaa wixii aad samaysay inaad dad la wadaagto balaankii oo kale tusaale ahaan inaad dhulkan iyo geedka iyo waxyaabaha intaad iska yara dhilgarayso inaad waxay noqon aad samayso kan oo kale iska dhilgaree elevation delete okay delete anyway inaad baasha mercury xagga ay ku qoran tahay bidixda aad soo qaadato dabadeedna aad sidaa tusaale ahaan tiraado ilaa gaariga xitaa include garee ama ku dar gaariga laftiisa dabadeedna file aad save as aad tiraado okay save as markaad tiraado barta options ay ku qoran tahay inaad okay cancel leh bartan horta waxaad ka dhigtaa waxaa loo yaqaano PDF file dabadeedna xagga page options ay ku qoran tahay ka sii gal dabadeedna sida iskaga diiso xagga waxba ka bedelin xaggana waxaad tiraahdaa mercury area waa meesha soo calaamadsanay fit to page okay fit to page markaad ka dhigto dabadeedna desktop edit save aan dhaho okay haddii aan soo fiiriyo desktopkayga learn archcard for beginners dabadeedna waxaa laga yaabaa yani sawirkii aynu xaggan ku haysanay inuu ku soo saaro marka wixii aad iska saartay si aad u soo ceshto control z control z control z control z control z iyo tashin kartaa 3D ga dadka wada aragtaa in waxaan dhahay wixii dhulkii iyo wixii soo noqdeen okay hadan furno PDF kii intii aynu calaamadaysanay ee ahayd blanka iyo gaariga intaas baa imika hadda maxaan dhahay sawirkii aynu arki doonaa ama dadka kula wadaagi kartaan qofka projectiga uu samaysay marka practice samee coursigan haddii aad dhamaystay waxaad samayn doontaa insha allah inaad archicad bungalow design fursad aad qaadato dabeedna G+1 ka youtube kana yaala aad sii daawato aad sidaa ku noqoto qof archicad yaqaana projectigan ku samayn karaa okay waad tahay waa kan fiiri حضرتها انتي ان سؤال على مدرسة قف كان ضد الدواء project يقول سمير دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.